hore waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bulshada ku dhaqan degmada Garbadadar maamulkeeda iyo aqoon-yahankeeda odayaasheeda iyo dhammaan cid ka soo qayb ka qaadatay soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baad mahadsantiin waan idin ognahay waan ku faraxsanahay waan ku qanacsanahay waan filaynay inta waxay dheer waxa kale salaamaya dhammaan madaxda kale ee wada soconay run ahaantii saddex qodob baan u kacay horta qodob waxa weeye dhakhtarkeenu joogno maanta aynu fadhino wuxuu muujinayaa dadku markay isku tashadaan ee iyagu ay gacantooda waxay ku hayaan iyo waxa ay afkooda ku ururin karaan ay isku geeyeen waxay qabsan karaan cusbitaalkaas waa cusbitaal ay dhiseen dadka ku dhaqan degmadan aynu joogno ee Garbadadar xukuumad ahaan dhagaxaana u dhigay maantana waxa dhex yaala qalab ilaa $80,000 oo laga bixiyay miisaaniyadda qaranka iyo cashuurta muwaadiniintu ay bixiyaan waxa kale oo naga go'aana in sanadkan cusub dhakhaatiirtii iyo neersiskii iyo agabkii u baahnaa oo dhan la keeno oo lagaga baaqsado in dad qof bukaana la geeyo deegaano ka fog halkan walaalayaal arintaasi waxa ku suurto gashay waa waa isogolaanshaha waa walaaltinimada waa nabadda iyo inaynu nahay qaran ku tashaday inaynu hadba waxaynu haysano aynu si cadaalad u qaybsano isdhiiri galino madaxweynaheenu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah wuxuu isku xidhay inuu isku dayo in wadamada adduunka uu ka dhaadhiciyo qadiyadda Soomaaliland maalintii Jabuuti uu baxay 7 cisho kamuusu Kenya wuxuu socday waxay ahayd ummadan qarankani waxa uu qabsaday iyo adduunka xaq waxay nagu leenahay inuu ka dhaadhiciyo xaqeena inuu soo rido labo Jabuuti oo nahay wadan aynu jaarnahay isku cimilanahay isku dhaqanahay isku dadnahay isku dhaqaalanahayna uu ku xujisiyay talafteedu waxa sheegaysaa inuu ka fikirayo madaxweynuhu in adduunkeena ictiraafkii laga helo nolosha muwaadinkana saameynteedii la wanaajiyo shalay wad maqlaysay markii la joogay xadka in lagu dhawaaqay xadkii inuu furan yahay isla markiiba waxaan dareemay markaan soo soconay saakay la xalay in gaadiid badani uu sii socdo talafteedu waxa sheegaysaa marka hawlaha qaranku uu hayaa waa hawlo aad iyo aad u waaweyn oo ka bilaabmaya in la saameeyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo nabadgelyada iyo nolosha qofka iyo in adduunka aynu u sheegno waxaynu qabsanay inaynu xaq ku leenahay inta wax dheer laakiin oo muhiima oo odayaashaasina qayb ka yihiin haddana in la dadkii la isku hayo gudi oo dadku wada noolaadaan wada daaqaan beeraha wada qotaan wax wada qabsadaan mustaqbalkeenu soconaa maaha bariye saad dambe waxaynu soconaa inaynu ummadaha hore u maray ee inaga horeeyay aynu hiigsano oo aynu dhaafno waxaan aaminsanahay maanta wadamo badan baynu tusaale ugu nahay dimuqraadiyadda inagu markaynu safafka ku jirnay ee kaararka la qaadanayay wadamada qaarna dagaal ka socday iyo qaxba ka socday cabsi baa jirtay taas markaa waxay sheegaysaa inaynu meel hore aynu gaarnay laakiin waxaynu u baahanahay inaynu is iimaansano inaynu is aamino inaynu si islaamnimo isku jeclaano meesha ugu hooseysa ee waxa weeye ilaahay inaga rabaa waxa weeye inuu qofka walaalka ahay adu jeclaato marka wax kale la soo dhaafo islaamnimada oo meesha ugu hooseysa hadduu qaraabo noqdo oo abtiga noqdo oo adeerka noqdana xuquuq kale oo dheeraada oo dambigeeda iyo ciqaabteeda la qofku hadduu ku xadgudbana way leedahay dhulku waa barwaaqo uu naga badan yahay beer iyo dhul la daaqo iyo macdan iyo kalluun iyo biyo jiraan laakiin waxaynu u baahanahay waqtigeenu ku luminayno xumaanta iyo isxansiga iyo shakiga aan waxba ina yeelayn waqtiga in la galiyo inaynu ku lumino inaynu ummadeena horumarino inaynu hore u soconno inaynu madaxa la qaybsano waxaan ku soo gabagabeynayaa oo magaaladana ka muuqata horumar weyn baa socda horumarkaasi laakiin wuxuu jiri karaa uun markuu horumar noqdo qof walba uu qayb ka noqdo oo cid gaar ah aan lagu deynin annagana wax naga go'an in meel walba aanu joogno ama ha noqoto adeeg caafimaad ama ha noqoto adeeg biyo ama ha noqoto adeeg kale in dadka si sinaan iyo cadaalad
loogu qaybiyo madaxweynaha waxaan ugu mahad celinaynaa oo kale in shaqo abuurkii dadkii loo simay oo shaqo qaran la abuuray in mashaariicdii loo tartamo dhammaan waxay sheegaysaa inaynu maalinba tallaabo qaadayno aynu isku sabirno meel fiican baynu soconnaa waan kaftamayaae dee anuu nin waxaan ahay deegaanadan oo dhanba matelaya markii aan joogay fardalaguxidhna waxaa la yidhi halkaa cidi nagama matasho halkana hadalkiibaa soo yar noqonaya waar maalinba qof baa dadka matale is-iimaansigu hoostana ha ka bilaabmo markaa waar aad iyo aad baan u mahadsantihiin